maamulka madarasada agoomaha ee degmada Wadaamago ayaa munaasabad sagootina u sameeyay laba arday oo helay deeq waxbarasho waxaana deeqdaasi waxbarasho bixinaya Canab Maxamuud Cali Reeraac oo gacanta ku haysa madarasadaha degmooyinka Qurlugud Wadaamago iyo sidoo kale Buuhoodle waxaana munaasabadaasi intii ay socotay ka soo qayb galay wasiir dawladii hore xanaanada xoolaha iyo sidoo kale xildhibaano ka kala socday degmooyinka Caynaba iyo sidoo kale Wadaamago ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay maamulka madarasadaas qaashay waxgaradka kasoo jeeda degmooyinka Qurlugud iyo Caynaba oo mahadnaqay Canab Maxamuud Reeraac iyagoo sidoo kalena bogaadiyay doorka muuqata ay ka qaadatay waxbarashada degmooyinkaasi waxaanu fadhinaa saaka xaflad qiimo leh oo aan ku sagootinayno labadii arday ee ka soo baxay maxadkan agoomaha degmada Wadaamago kuwaasoo ay ka bixisay Canab Maxamuud ay ka bixisay scholarship burca insha Allah ta'ala aad iyo aad baan Canab ugu mahad celinayna kuwa ku tabcaya ay ugu horeyso Canab Maxamuud Cali iyadana waxaanu Ilaahay uga baryeynaa iyadana in aakhiriya adduunyadaba Ilaahay wax qiimo badan siiyo haddii ratacab sii gelisay oo u gudbisay waxbarasho ka sii sareysatan qof agoon wax geliyay dad islaam baynu diinteena halka ka taagan tahay way noogna waxaanu in badan habeen iyo maalin ugu ducaynaynaa inantaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maqaamo ka qiimo badan kuwan Ilaahay jannada uga dhiso waxaanu aad iyo aad ugu ducaynaynaa oo u soo dhaweynaynaa macallimiin baa la qoray maxaana leedkii baa la shilay guryaha la dhisay ceelal baa la qoday yaani lagama soo laaban karo meesha tacab galgeliyay cid kasta oo tacab galisana Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala ka abaalmarinaya annaguna waanu haydaa deegaan ahaan iyo macnaha maamul ahaanka madrasada Wadaamago aad baan ugu faraxsanahay waana u mahad celinaynaa Ilaahay baa mahad leh dadka ubadkayaga aabayaashood laasi nagula tabcaya ee sida caqiibada leh ugu dadaalay anigoo Shaaib Abdullaahi Maxamed waxaan u mahad celinayaa inta ingiriisi scholarshipka anoo ku faraxsan gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay wasiir dawladii hore xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Reeraac oo deeq lacag ku wareejiyay waalidka dhalay caruurtaasi runtii aad baan u bogaadinayaa labada niman waxbarashada runtii iyagu isu soo gaarsiiyay inay maanta deeq waxbarasho helaan deeqda waxbarasho inamada gabadhaas waxay ugu tala gashay hadii Ilaahay ka dhigo oo waqtigaas saacido nin walba $8,000 baa ku baxaya 4 sanadood sanadkii walba waa $2,000 lacagta ninka laga doonaya ama midkii laga doonaya $8,000 bay gabadhaas ka bixinaysaa ninkii walba ka bixinaysaa hadii alla ka dhigo waxa la doonayaa inay muujisaan inay wax barataan ujeedada ay ka leedahay iyaduna waa inta sanad fiigoodii weeyay sanad walba inta bixinaysa goorta lacagta la keenayo idinka waxa la idinka rabaa inay wax barataan Khaliil Barrawraan TV-ga qaranka Soomaaliland Caynaba